لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك الحج، أعمال الحج رقم 4. waxaan filayaa inaan soo gaadhnay acmaashii xajka iyo lambarkii afraad haddii alla idmo. qaybtan waxaan uga hadlaynaa fadliga ayaamu tashriiq, maalmaha 11, 12 iyo 13 xajka, saddexdaa maalmood ee meesha Mina la degan yahay iyo fadliga ay leeyihiin iyo waxa la sameynaya insha Allah taala. Horta ayaamahaas rasuulku wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiis saxiix Muslim ku sugan, ayaamu Mina وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ومالمو أيامها من الجوجاي ومالمو وحلا عنو أو وحلا عبو أو إلهينا الحصو سبحانه وتعالى. هذا قفك وح كلبا ما هي صدق هذا الشيء، هذا الحصوصتان ذاتك حج كتجا صدق لا الرماد بابا مالين صدق تندات كجرتا ميل لما هذا يسيب قلبت بعض بورها صوت توران يسا أنت كلورنا هالك تندات كجرتا مركب واحد ماشي يا لا وعنتو يا عبتان iyo dikri ilaahay. marka wixii kalena laguma ogolo inaad maarta ku baashaashay, waa inaad dikriga ilaahay aad ku jirto subxaanahu wa tacaala. culimadu waxaa kaloo ku fasireen maalmaha iyaga ilaahay markuu yidhi wadkurullaha fi ayaamin macduudaat, ilaahay xusa maalmo tirsan. wuxuu yidhi ibnu cabaas iyo kayrkii waa maalmaha tirsan waa saddexda maalmood ee ka dambeeya maalinta naxriga oo 10ka ah. dikriga ilaahay ee marka la sheegay oo la yidhi xusa baa qaybo badan. waxaa ka mid ah dikriga ilaahay salaadaha gadaashooda in la xuso. waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu oo xusidaasi ay tahay midka muqayyadka la yidhaahdo oo takbiirtii in la qaado oo carafada maalinta carafa ka bilaabma ilaa iyo saddexda maalmood ee 5 maalmood, maalinta 9aad, 10aad, 11aad, 12aad, 13aad salaadaha marka laga baxo adiga arkay la aqriyo adkaartii takbiirtii ciida la aqriyo. waa midka labaad waa in alla la xuso subxaanahu wa tacaala marka xoolaha la gowracayana alla la xusaa subxaanahu wa tacaala. udxiyaduna ilaa maalinta 13aad aakhirka casarkeeda intaa waa la qali karaa. waa marka saddexaad allah waa in la xuso marka cuntada la cuno oo la bilaabo iyo marka laga baxo. marka horena bisinka ilaahay lagu xuso, marka dambena xamdiga ilaahay lala yimaado. waa marka afraad manaasigta marka la gudanayo oo acmaasha xajka lagu dhex jiro oo dhan dikri bay u baahan tahay. mashaacirta, tawaafkii, sacyigii, buurihii la tuuranay intaba dikriga ilaahay baa afka lagu haynayaa. awqaad marka iska mutlaqa baa jiro oo salaadaha iyagu ku qaydnayno iyagu la iska wadaya dikriga ilaahay. cumar bin al-Khattab waxaa la yidhahdaa markuu joogo Mina wuu takbiirtaasuu wadi jiray, markaasay dadkuna la kibaaran jireen. fatartaju Mina bitakbiir kullahaa, marka meesha la degan yahay oo dhan baa takbiir wada noqon jirtay. ayib marka sidaa faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum oo shadda dikraa. haddii manaasigtiinii iyo camalkiinii aada gudataan oo shaqadii aada samaysaan ilaahayna xusa subxaanahu wa tacaala. ayib dadka salafka waxay aada u jeclaysan jireen ducadan soo socotaa oo aayad qur-aanana ducana oo lagu ducaysto in aad qofku inta xajka joogo uu afkiisa u baro rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. waxay dhahan culimmadu ducadani sababta ay u noqotay siyaabahaas muhimka ah waxay jamcisay khayray dunya waalaakhira, adduun iyo aakhiraba labadoodiiba way jamiso way keentay. xasanu lbasri ayaa wuxuu odhan jiray alxasanatu fi dunya, xasanadan aayaddu sheegtay adduunka lagu sheegayo waa alcilmu waalcibaadatu, waa cilmi iyo cibaado weeyaan. walxasanatu fi laakhiratina aljannatu wey. marka aakhirana waa janno, adduunna waa cilmi iyo cibaado. maxaa ka fiican ilaahay xamdigii. ayib marka buuraha la gamanayo iyagana waxaa la rabaa markaad wax tuuriba inuu maaragtay la timaado allahu akbar aada dikriga ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala. walidaalika bay culimmadu yidhahdeen dadka mu'miniinta ee xajka jooga ee isu wada imaanaya ilaahay 2 shay buu siiyey. badankoodii iyo jirkoodiina ilaahay baa jamciyey. ayib alla wuxuu ku jamciyey cuntadii iyo cabitaankii meel baa la wada fadhiyaa. quluubtoodiina ilaahay baa ku jamciyey dikrigii iyo shukriga waa kan la isla qaadi labayk allahumma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicma laa shariika laka. يعني أذكارتي بالله إسلا أقرنا يا ودتك إسلا وضع
marka intaasoo dhan maalmahaasina waa maalmo wada ciidaas laga bilaabo sagaalaadka tobanka koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka waa ayaamu ciid rasuulkaa yidhi sala allahu alay slam xadiis saxiix ah yowma carafa maalinta sagaalaad wa yowmu naxri maalinta tobnaad waa ayaamu tashriiq saddexda ka dambaysa waa ciidunaa ahla alislaam waa ciidda iyadii haddaanay dadka muslimiinta wahiya ayaamu aklin wa shurb waana maalmo wax la cuno oo wax la cabo weeyaan xadiis kale rasuulku wuxuu ku tilmaamay sala allahu alay wasalam ulaa ayaamu minan waa saddex maalmood ee qofkii faman tacajala fii yowmin falaa isma caleyh yacni qofkii maalinta saddex iyo tobnaad iska baxana wax ismiya dushiisa ma ahaanin ee maalmaha ilaahay subxaana watacaala agtiisa ugu weyn waa maalinta tobnaad iyo maalinta koob iyo tobnaad ee ayaa maarata ugu weyn maalinta tobnaad baa ugu weyn ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala xadiis buu rasuulku wuxuu ku leeyay saxiix ah ina acdama alayaami cinda allahi tacaala yowmu naxri huma yowmu lqar yani waa maalinta naxriga oo tobnaad iyo maalinta qariga yowmulqariga yowmulqariga culimadu waxay ku fasireen waa ayaamu tashriiqa maalinta ugu horeysa oo cikrima baa wuxuu leeyahay sababta xitaa loogu magacaabayna dadka ayaa yastaqiruuna fiihi bimina walaa yanfur yani dadku halkaasay joogayaan oo ka tegi mahayaan cikrima ayaa wuxuu leeyahay adkaarta ugu fiican maalmaha xitaa mina la joogo waxaa kamid a rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar sufyaan ayaa wuxuu ku fasirayaa alxasanatu adduunyada waa cilmi iyo risqi buuri iyo tayib oo wanaagsan aakhirana janno wey abaa muusa alashcari ayaa wuxuu leeyahay maalmahan mina la joogo ducada lama radiyo waa la aqbalaa bimacnaa kor ilaahay ugu qaada raqbadiin iyo waxaad jeceshihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiista adkaarta iyo waxyaabaha lagu khatimo wax walbao camal oo la qabtayna inta badan waxaa lagu khatimaa dikriga iyo istikfaarta ayaa lagu khatimaa sababtoo a ma garan kartid inaad wixii sidii saxdayd u samaysa iyo in kale ma garan walidaalika baa layidhi huma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llah markaad xitaa dawaafka soo gudataan ilaahay istikfaar iyo dembi dhaaf weydiista marka salaadaha laga baxo ilaahay dembi dhaaf baa lawi astaqfirullah 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 baa la yidhaahdaa kafaaratul markii meel aad fadhida aad ka kacayso subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayka baa la yidhaahdaa musqusha marka laga soo bixi gufraanaka baa la yidhaahdaa marka fawaa-ida ee dembi dhaaf inaad ilaahay weydiisato wixii aad samaysay sidii saxda ahayd inaad u samaysay in kale ma ogi sidaas darteed wixii khalal oo ku jira allah subxaanahu wa tacaala aan barino ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeenna iyo kii waalidkeen baa haynaga dhaafo rabbina subxaanahu wa tacaala acmaasheenna mid ilaahay raalli gelisa allah ha ka dhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala xajkeena maqbuul ha ka dhigo cumradeena mutaqabala ha ka dhigo dadka muslimiinta ha u wada fududeeyo inta aan weli tegina allah usoo fududeeyo jazakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu